dadka ahlu jannaha ee jannada gelaya dadka fuqarada ba u badan dadka maalqabeenka iyo madaxda sarsare inta badan xadgudubka iyo kibirka ku badan laakiin dadka jannada u badan ee deegaankeeda aad ka u degi doona dadka fuqarada ee masaakiinta ee dadka tabaalaysan ba u badan xadiiska Imraan ibn Husayn fi sahih al-Bukhari wa Muslim ayaa nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam habeenkii la guuraysiiyay itala'tu fil janna jannadan daawaday wa daalacdo jannada yaa lay tusay fara'aytu akthara ahliha al-fuqaraa waxaan arkay dadka u badan ee deegaanka jannada u ahi waa dadka saboolka wa tala'tu fi an-naari naartan daawado waa lay tusay fara'aytu akthara ahliha an-nisaa waxaan arkay dadka ugu badan ee deegaanka u ah waa dumarka nabiga sallallahu alayhi wasallam macnaheedu maaha dumarku inay ahl naar wada yihiin macnuhu waxa weeye horta marka hore dumarka ragga way ka badan yihiin tira ahaan mar walba way ka badan yihiin dumarka ragga waa marka labaad wax badan baa dumarka ku badan cayda afxumada xanta nacdasha habaarka waxaas afkooda ku badan abaalka dhaca ragooda maxaan ku yiraahdaa wax badan baa ku badan sababahaas marka inta badan tira badnaantooda keenaysa iyo gefka ka dhacaya في سنن الترمذي وحاكسوغا من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يري سيدا أي أكله الرين حق الديغانك اللي ضد بدنوا أغنياء وشنادا قال ينا ويتشران لكن أغنياء ده حق لين شنادا وحكا قبضا فقراء ده ما كان النبي يقول إنوشي عليه الصلاة والسلام وقت جاء أي شنادا كجهر الرين يدخل الفقراء الجنة فقراء يدك الصبول كمساكين تاهي شنادا يقال قبل الأغنياء ضدك غنيقة كهر ب500 عام شنبق الله صندوق بجنة ذاك كهر رينيان مركب مال كلفتيسو وحويان حلالها حساب وحرامها عذاب مالية أركيسو حلاش يدنا حسابها دبصعد حرانت يدنا عذاب دبصعده وغفكي والو عذابيا ما ركتي هدي مالكي سوى عن تعاملي وايو عدة ugu horeysa ee jannada galaysa waa ayo ummadihi ilaahay dunidan uu keenay iyo rasuushii hogaaminayay u soo diray عدة ugu horeysa ee jannada galaysa waa ummadda nabi maxamed alayhi salatu wasalaam xadiiska bukhari muslim baa cadeeyay min xadiis abi hurayra waxaan maqlay bi rasuulka oo leh nahnu al-akhiruna anagu waxaanu nahay ummadda u dambaysa dunida timaada السابقون يوم القيامة ما لنت قيامنا جنة قليتان كيدا وهو الرئيس أيان هاي جنة درجات بيلاده درجات كلا سرسرية إلاده بعضها فوق بعض درجات كلا سرسرية إلاده إلهي سبحانه وتعالى مركئ في سورة طه آية شنية ضباطا إلى لحية ضباطا مجرمين تمركوا كسو شيكي ذاتك دنبيادا وين قلي إيه إلهي آخر الله كل مدونا حساب تي عقاب كي متيسان دونا مركوا كسو شيكي بو الله وحو يري ومن يأته مؤمنا قفك الله يماده حالدا وإله إيمانا يؤسقوا مؤمن قد عمل الصالحات أعمال ونكسن سميي فأولئك لهم الدرجات العلا وحيليهن درجوين سرسري إليهن جنة ما لا سري دقيان أسأل الله يجعلنا من أهلها ما لا سرسري دقيان محايا لدادكو جنة وكلا الدرجة سرسريان والآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل آيات كلا يهيد دادكو وكلا سترون يهي آخر إلهي أكتي سيدا الدنيا لوكلا عمل يا عباده وعن يهي أي آخرنا إلهي أكتي لوكلا سترونانا يا ولكل درجات مما عملوا أيضا سقيحس ولكل درجات مما عملوا مدولي بود دكالو شناها كم إذا درجات بولية لكن محالك قصينا يا بحياة سماي سبالك قصينا يا فدي يفودي عباد ليسكوا بسمالو تري مركز دي وحالك قصينا يا وحي أدي وآد سميس أعمالها مركز إلهي سبحانه وتعالى
wuxuu tilmaamay darajaadkaa sarsare jannaatu cadnin nagaadiga iyo barwaaqada jannadeeday geli doonaan tajrii min taxtiha alanhaar guryaheeda iyo dhirteeda hoostooda webiyaa sidaa u burqanaya khaalidiina fiiha way ku waarayaan jannadaa gudaheeda wadalika jazaau man tazakkaa arrintaa ilaahay uu sameeyey deeqdaa uu bixiyey jannadaa iyo barwaaqada waa abaalgudka qofka adduunyada isdahiray adduunyada qofka isnadiifiyey oo xumaan oo dhan iska nadiifiyey abaalkiisu waa caynkaa ayuu nebigu yidhi rasuulkuna xadiid wuxuu ku leeyahy saxiixa ina ahla alcilliyiin darajooyinka sarsare dadka deggan ee jannada layataraa'awna man fawqahum kamaa tarawna alkawkaba fi lufuq waxay dadku isugu tilmaami doonaan oo isu tustusi doonaan cidda ay ka sarreeyaan sida dayaxa ama sida xidiga samada ku yaalloo kale dadka dhulka jooga xidigaa ee kaasaa ka if badan kaasaa ka sarreeya ayaa jannada dadka xagga hoose jooga kuwa ka sarreeya ay isugu tilmaami doonaan qaaluu tilka manaazilu alambiyaa rasuulka ilaahay oo dadka halkaa degay dee waa nebiye iyo rusul mooyaane cid kaliba halkaa miyadaa degi karta qaala laa inahum rijaalun aamanuu biاllaah wasadaquu lmursaliin maya ambiye iyo rusul keliya maaha waa rag ilaahay rumeeyey oo iimaanku dhab ka yahay wasadaquu lmursaliin